بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد فالسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أيها الأحبة، وما سنتي حضور كينك والله يا درسون وداري هاي لكن وحنا سكدي sida ugu kooban inaan soo bandhigo maadaama waqtigu xadidan yahay waqti dambe la joogo dadkuna daalayaan darsigu duuduub ahaan wuxuu ku saabsan yahay alqiyaada raashida ama hoggaanka toosan. maanta arday baa tiin laakiin waxaa la rajaynayaa waqti dhow inaad noqotaan mustaqbalka ummadda dadkii hoggaamin kara ama horseed ka noqon karna. qiyaadadu ama leadership waa hoggaamin, waa dadka horseed u ah, garhwadeeno ah. markaynu soo koobno warkeeda oo dhan waxay ku tilmaamaan inay yihiin qiyaadadu waa awoodda qof ama group ama dadka wax hoggaaminaya ay ku dhaqaajiyaan atbaacdooda ama dadka raacsiisan ama dadka daba socda هدف أما تارجت أما يول معينة أي كوكية. إحنا وين الضغط لطارو الله طارو هدف كي تذكر الحياة الكارسية. وطبعا آدمه كمان مرمو وضع نوران. وحنا إذا كفر الحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام وتلمام يومك وذا النور يحين أنا مام الكمال. صدح له النبي يقول هذا صفر فوق بحران. hoggaan ka dhigta saddex bannaan cidla degan buu nabigu yidhi uma bannaana inay qof maamul u dhiibtaan mooyaane. haddii saddex qof oo socod ku jira safar ku jira waqti koobanna noloshooda isku xidhan tahay kadibna iska kala tegi doono nin waliba meeshuu doono u kici doono ay u baahan yihiin cid maamusho iyo hoggaan iyo kala dambayn wax macruufa ummad dhan oo noolina inaanay ka maalmin. sidaa daraaddeed waxaynu garan karnaa qiimaynta diintu ay siinayso. hoggaamintu markaa aragtiya dunida maanta yaalla waxaa la isweydiiyey hoggaamintu ma wax loo dhashaabaa mise wax la bartaa? ma farsamo jaamacada dhigataan meelaa dhigataan ma farsamo inta la barto dabeetana la isticmaali karaba mise waa sifaat fitriya qofka bini aadamka waxaynu naqaanaa sifaatu ku dhashay inuu jiro geesinimo iyo fulaynimo. waxaa laga yaabaa by nature inuu qofkani fulayay, waa laga yaabaa tarbiyadiisii uu soo qaatayna inay ka qayb qaadatay inay muujiso fulanimadiisaasi. dadka bar waxaa laga yaabaa by nature qof jari ah oo dhiiranimaya, waa laga yaabaa tarbiyadu ku soo korayna inay ka qayb qaadato. waa kala dhabcaalka soo ma taqaaniin gacantigoodayga midaan laga furfurin wixii soo gala basharka waa ka mid. waxaa kaloo ka mid ah mid iska gacan furan. kama warramayno qofka marka diin iyo janno iyo baabkaa looga warramay, waxaan ka warramaynaa qofnimadiisa caadiga. sidoo kale marka maamulka iyo garwadeennimadu ma wax loo dhashaaba? haddaynu idhaahno waa wax loo dhashay shaqada inoo taalla waxay tahay inaynu baadi goobno waryaa bahasha u dhashay oo ku fiicanoo aynu raadin karnaa. haddaynu idhahno waa wax la baran karana waa inaynu idhahnaa dadka waa inaynu tirayn karayna ummadda waa inaynu wax barraa oo waxaana noqdaa maxay wax la baran karo. maanta waa ogtiin jaamacaadka subject leadership la yidhaahdo iyo baabka in la dhigo tiro badan oo dad bartaan. waa doodaha dhex yaallay ka mid tahay ilaa 8-9 nadariyadood oo leadership ku saabsan bay soo bandhigaan. laakiin waxa ay tilmaamaan qolada psychology-gu nolosha bini aadamka oo dhan generally marka la eega bay leeyihin 2% iyo 2% ama 1 to 2 bay idhahdaan. boqolkiiba 1 ilaa 2 maba awoodaan. inta ka dhexdhana waa la train garayn karaa in laga dhigo maxay qaado. deeq haddaad timaado bay leeyihin waa sida boqolkiiba 1 ilaa 2 ayaa fitriyan u dhasha, boqolkiiba 1 ilaa 2 ayay ku adag tahay. yani waxay leeyihin sifaadka bashariga oo dhan waxay u badan tahay in ay labada dacalna
وإحنا إلى هذا bell distribution جلس كسوسا وما سمعنا وجلس قبل لينا هل كان هو 1 to 2% إنت يا رغرا لابن إنت يا رد بيل لابن إنه هو 1 to 2% إنت عند حنا و 96 to 98 96 to 98 كنا ويو كلا دوي يلا بدلنا قارن يروم هذه الله قدر مرتي وهو قادر نقوم كراشرة قال وقت غابن الصن إن هذا هو قادر جالس يسافر سيدا بلك ويحيي الله تعرسي وكلا دوي ميدك إنت بدل وكلا دوي هذا هو حاصل أمر الصوت وضوبنا السؤال شاي لما كاسكت دوديا النبي عليه الصلاة والسلام وفد كمل وفود عربين عام الوفود يمن سي أشد عبد القيس أيوي يمين أشد عبد القيس كاسيا لو ترى النبي يقول الله صفة وإلهي تعلي بعد لا لما صفة إلهي تعلي أياد الحلم ولا ناب نقول ضلقات يكاد سير حتى قف ضلقات بدن بعد كلاتها قفان دقدق بدنينه وحسكه بيا كاتسيانا ولا وصفه وأمانة بني آدم كم الصفات كالوامة. يعني يقول يوحج عليه يقوى يعني حديث كان يوحج المام يا بني آدم كبروا لشد الغاط بين الجيران. بني آدم كبروا لشد كاتسيو بين الجيران. إذا الصفات كبني آدم كواحد كم دي هنا إذا لشد هيبة جرتها. لكن هذا النبي محمد المام عليه الصلاة والسلام. إنما الحلم بالتحلم وإنما الصبر بالتصبر وحديث كلام النبي عليه الصلاة والسلام ضلقاتكم وضلقات برشة بنقول يعني إن ترينينج نلقوك يعني كلام النبي لو شيء صبركم وإسا الصبر سيب ونبغى تلمامين تري وكان النبي حديث كيسوي حين كفهم إن حديث الوضع اللي بينه وحكي جرا وضدك الناجر اللي برضو الشيء نين يشري كرا ضدك برض عن طريق تببر كهلي كرانا إن يشري كرا بينه كفهمين سيدا أوجد يا leadership وحي هاي وحدنا الصفات بدنا لبرنكها ده يوجد leadership كهذا الله واختبار قوم ما جعله وعنوان مركز هو بهتنا وحدة كوغتان لكن إن تلمامون بحيو وحي تلمامان آدنا هدتك leadership كود وقوة وينا وحكم ده إلهي القرآن كان ينوت المامين الرعنا أنبياء يرسوشا وهي أنت بدر مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد بالشأن تريب السنين ده بتنوع ده بتنقول أنا آدنه قارن أيكو قارثي وقتنا دبتنا قاد وكتجي بيدا هذا leadership كوفي عنه ونك leaders بيرا بيدا هذا نطق بيرا مش عادي ما هي leaders بيرا وحين less than 50 years أي دريدكم معموله إذا هو from zero وهنا المعطيات صفرية هذه الدولة ترتل ونقول هذا هو جامي ده واحد شراء المسيح ومؤسسات الدولة والنظام والضغط وحلاقيها بين الدولة ده أهداف تدي واحد دون يسوي حلا يسرق قرطين هو الله قرطين ده نبي محمد عليه الصلاة والسلام كل جيب الله صدره وحنا اللي هو ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دول دورنا نحرسه طهارة صدره وحنا الله شق اللي تنذر قوما ما أنذر آبائهم وحنا تنذر يسدد أنا بهود وحلوشي يجي دايا بهود وحما قرب بالله كواسون تضد كردجي من الجاهلية نصوص تكورتين تكسوق هذا ومسلم كردجي وعقيدة كنادعية وهدف سمية ودجال قلية أي الدنيا لغومها إنبو غارسيا لكن واحد the best leader مثلا ماكسيما إن كان لدى 5 levels of leadership marka uu tilmaamayo hierarchy-ga leadership nimada kuwa ugu dambeeya kuwa ku tilmaamayo waxa kamid ah leaderka waxa la yiraahdaa buu leeyahay heerka jooga waa ninka ka taga leaders الرعية كتير وقامين تنبير بجرا ضبطوا حبالا لكن وضع المسوي كل يوم موضوع ربع لكن من كبيرين ديفلوب قرايين وقامين سمايو وضبط كان وده الليدرز كذا وبريتوس شقة اللي قراين كرا ويسوي هذو ماشي كبحه تارجت ده جالسين كرا كتاجا
ayaa bay leeyihiin one of the best leaders kuwa ugu fiican ee dad hogaamin kara nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam niman buu baadiye ka keenay dabeetana qaadat alcaalam buu ka dhigay walidalik baa nimanka maanta ugu caansan wax ka qora maalan waxa ka mid ah Jonathan waa oday ingiriis oo gaboobay jaamacadka ingiriiska professor of leadership ahaan jiray nimanka waliba labadaba wada leh yani waana academic professor waana trainer waa one of the best trainers in this world bay ku tilmaamay 1 milyan oo qof uu train gareeyay bay dhahdaan waa ninka ugu doorteen United Nations dadkiisa inuu train gareeyo jaamacadan Torino ku taala United Nations ku leeyihiin leader skills ka dadka lagu baro waa ninka ugu doorteen baalka inuu yahay almost more than 50 books buu leeyahay yani wararka ugu caansan marka leadership laga warramayo qoraaladiisa waxa ka mid ah book yar buu qoran leeyahay The Leadership of Muhammad hogaamintii nabi maxamed hogaamiyaal badan buu wax ka qoray hogaamintii nabi maxamed macadka ingiriisku uu leeyahay British Chartered Institute of Management waa buug uu siiyay 2011 inuu yahay axsan buug laga qoro baabka hogaaminta nabi maxamed ugu weyn buug weyn maaha 117 page maaha buug ballaaran wax badan ka warramaya wax kooban buu ka warramaya laakiin uu tarkiisinayo ninkan iyo mujtamacu ka soo baxay iyo siduu u hogaamiyo sifaat buu tilmaamaya sifaatku haddii aan duuduubaan idin sheego wax agtiina ku weynba inaanay noqonin baa laga yaabaa isagu wuxuu odhanayaa good leadership-ku buu leeyahay wuxuu la mid yahay xoola raaca fiican buu leeyahay xoola raaca fiican ninka xoola raaca muxuu sameeyaa waa nin mahmuumka waa nin warwarkiisu yahay xoolahani siday u fiicnaan lahaayeen wuu u saxamiyaa waa u raadiciyaa meesha fiican buu geeyaa wanaagoodu raadiciyaa waa mar labaad waxa laaliya wax khatarta ku ah buu ilaaliya bahal iyo dad iyo xoolo iyo wax walba uu ka celinaya waa mar saddexaad bay idhaahdaan xooluhu wato tira ahaan kuma wadeen midhmidh buu yaqaanaa wuxuu yaqaanaa mid walba iyo ciladiisa iyo dhibta haysatiya waxa ninka Soomaaliyeed geeljiray deegaaliisa hashan ragaadka ma taqaani shaqadaha muddo ee cagta dhulka dhigi karila wuu yani neef walba sidiisu wala socda oo duudubahaan uu lama socdee xabad buu kala ogi marka isagu wuxuu odhanayaa good leadership waa ninka xoola raaca ee ururiya xoolihiisa ee wanaagooda ka shaqeeya ee iyaga advantage-kooda isagu u dhib muta waxaasoo sifaada leh buu tilmaamaya nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka macruuf aynu wada naqaano muxuu ku tilmaamaya alaa kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyati falimaamu raacun cala annaas imaamku dadkuu raaciy wahuwa mas-uulun can raciyati warajulu raacun fi ahli beyti wahuwa mas-uulun can raciyati nabigu wuxuu ku sifeeyey eraygu gaalka kale u qaatay good leadership-ka ayuu wuxuu ku tilmaamayaa hogaaminta jaranjareed ee bini aadamka oo dhan inay qaab qaata qof wax wada raacaya ninka leaderkee dadka ugu koreeya waa nin raacaya ummadda iyo siday u jirayso ilaahay uu soo gaarsiiyey unuga ugu yaray aadanuhu ka koobay waa maxay waa qoyska hogaamin buu leeyahay ninka qoyska hogaaminaya waa inuu ka fakaraa qoyskan liibaantiisa wanaagiisa siduu u rari lahaa khayr u gaadhsiin lahaa hogaaminta uu islaamku sheegayana aadamuhu dhigaan waxay kaga gedisan tahay labada nololoodba wanaagoodu ka fakeraya adduunka iyo aakhiraba الرجال قوامون على marka la soo tilmaamay haddana maxaa xagga qaar lagu tilmaamay ya ayuha alladina aamanu qu anfusakum wa ahlikum yani hogaaminta qaybta ugu weyn inay tahay maxay inaad naar ka celiso idan ama guri maamul ama iskuul maamul ama masaajid maamul ama muassasad maamul ama shirkad dhaqaaleed maamul ama ummad dawlad maamul ama ummad ka ballaaran maamul ama ku talagal aadamaha inaad hogaamiso bayna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cidna bahayn ay ilaahay wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin reer makana waxa lagu yiri looma digin reer makana ka soo dhax baxay lama oran kuwan baad hogaamin doontaa adduunka u tahay baa lagu yiri maxay
naxariis adduunka inaad hogaamisaa lagu soo daray haddaba su-aasha isweydiintale waxaa in badan aynu ku celcelinayna waxa weeyaan hogaaminta مثلا ninkaasi markuu soo qaadanayo midmid inuu xoolihiisa ula socdo wixiisa ula socdo qisadii badare aad taqaaneen xadiidka xasanka culamadu ku tilmaamaysa sheekh al-Albani xasanun insha Allah ugu odhanaya waa sawaad xadiidkiisii xadiidkii sheegayay markii dagaalka uu nabigu dadka u sifayay ayuu nin u shaku gujiyay oo yiri safka saaruka safka ka soo yarooba yiri ilaahay rasuulkiisa waa dhaawacada nawar baad gaarsiisay waxaan rabaa inaan ka goosto nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu gooso wuxuu anigu maraa saaray markaad u sheego gujisay taadana mara ma saarayna waan qaawanaaburay markaad u sheego hadna maraa saaran marada ka fil nabigu alayhi salaatu wasalaam maradu ka qaaday wuxuu ka gooso dabeetana wuu qaaday maxaa waxa uu kalifay baa lagu yidhi wuxuu waxaan rabay mowqif adag baan taagnay inaan aakhira qaban doonana waan u malayn waxaan sidii nolosha kuugu dambayso waxaad sii aragto nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam jirkiisa inaad sii taabato kuugu dambayso dadka qiyaadada u dhashay iyagu markiiba wax yar bay ku kacaan مثلا marka saxaabadii laga warramayo rag bay leeyihiin raggaasi waa rag qiyaada fitriyan bay u ahaayeen cumar baa ka mid ah مثلا خالد بن الوليد baa ka mid ah خالد كما إذا هرج علمي قبضنا لكن ما صار قال بعيد ما لودي بما مربو وهو قامي عمر بن عاص ما كمله ما صار قال ورج قيادة ده دلابي مكمل هاي واحد أنا الرجع سوكله دهية العرب والرج على الفطرة بيلي توبة سنت يدق كم بدويان ولا شيء لكن leadership واحد كلوي مكوخت يلا ده schooling ده هو بدني وروا practices أسكسمية good leader buu noqon karaa dad practice ka la timaado sameynaysid good leader buu noqon kartaa waxaan soo qaadan laba nin Jim Cousins iyo Perry Posner Cousins and Posner waa laba nin oo aqoon-yahano Maraykan ah faniyada dunida ragga hogaamiye ka mid ah kontonka mudarrib ee dunida ugu caansan ku jira buugista ugu fiican waxay dhahdaan boqolka buug ee dhaqaaliya wixii ku xidhiidha laga qoray cida liidarka ah markay matalan bahalkooda sameynayeen oo kale waxay dhahdaan assessmentka waxay ka qaadeen 3 milyan oo qof oo questionnaire-kooda u direen markay 3 milyan oo qof questionnaire-ka u direen 75,000 oo qoraalina wuu yimi dad ka soo jawaabay oo qoraal ahaan markay sameeyeen warkoodaasi waxbay soo saareen waxay dhahdeen dadweynuhu saddexda qof dadka leaderska noqday ama waxa kan waxay dhahdaan the most respected personality trait that a leader can have saddexda personality saddexda dadnimo wax saddexda dhaqan ugu fiican qof uu heli karo ee madax lagu noqdo waxay yiraahdaan waxa ugu horeeya honesty waa alamaan quraanka xadiidkana waa aragtay markay ka waramayaan waxa ku xiga bay competence waa kafaa hawlkarnimo waxaan inaad garanayso oo aad amaliyan garasho qurama dakaaga way ka gedisantay intelligent-ku wuxuu sheegaa qofka fahamkiisu inta uu leeyahay laakiin ma sheego wax qabadkiisa iyo hawlkarnimadiisa qof baa jira very intelligent ah laakiin lazy ah nolosha caadiga markuu classka markuu joogo waa A grade A+ student weeyaan laakiin nolosha waa zero nolosha waxa kama waa aqli fakaraya mala philosophy uu noqon kari lahaa waxa laga yaabo qolada inta meel fadhiisato hadasha laakiin ma aha qof nolosha ku leh raadin ku leh ama wax qabad ku leh ma marka inaad intelligent tahay macnaheedu ma aha inaad nolosha qof guuleystay inaad ku noqonayso ma najaax waxyaabo badan oo kale ku xidhan sadaradeed waxay dhahdaan si oo iyada dunida mid ka qaaday inuu baaro wuxuu leeyahay in badan oo kamid ah si oo iyada ugu najaaxsan ee shirkadka waaweyn hogaamiya in badan oo kamid
markaan ardaynimadoodii baadhay buu yidhi waa C grade iyo D grade laakiin waa maxay waa hard workers buu leeyahay waa dad shaqo iyagoo xaggan intaan ka ahaabay xaggan waxay ka yimid arday badan oo A+ kaga baxdayna waxba lagama hayo marka competence uu ka gadisay intelligence waa dad kafaa leh hawlkarnimo leh shaqo qabad leh hard workers ka saddexaad wuxuu ku tilmaamay inay tahay forward looking nin gomadiisa iyo wuxuu markaa ku jiro uu arka maaha inagu inta badan dee waxa baynu dhaafi kari lahayn qoyskii iyo reerkii gomada iyo odayadu waxay ku sheekeynayeen iyo reeruhu waxay isku haysteen wax mustaqbal arkay war 10 sano soo socda xagee ku soconnaa adigu ma ka fikirtay 10 sano soo socda xagee u socota maxaad rabtaa inaad noqoto qofka haddaan mustaqbalka arki karaynin noloshiisa wax badan isma bedesho haddaad noqoto qof wuxuu markaa uu gacanta ku haya garanaya iskuul baan dhigtaa ama meel baan ka shaqeeyaa wuxuu markaa ku hayo uu gacanta garan aan arki karin mustaqbalka wuxuu leeyahay saddexda shay ee ugu muhiimsan ee traits waa sifaat qofka laga heli karo waa kuwa ka baydhaadeen waxyaabo kaloo badan bay ka warwarameen kuwa shanaadkii dadweynaha ay u qoreen LBI oo 3 milyan qof ay u qoreen waxyaabihii ka soo baxay buugooda مثلا ilaa iyo sodoguuradiisii bay u dabaaldegeen 1987 baa filayaa face editionkiisa ay soo saareen 25 guuradiisii waxay ahayd 2012 oo editionkii shanaad ay soo saaraan saddex edition buugooda markaad eegto saddex edition ay isku xiga ka 1987 iyo 2007 iyo 2012 saddex jadwal oo kala nooca ku jira oo ah warkii uu dadku ku soo celiyay waxay dhahdaan dad binaadam hadii wax la weydiiyo wax badan bay sheegi kan baa fiican midabku sida yeeshay markaan isku celcelinay ilaa shanta sifo ugu muuqaalka badan la dadku sheegeen number 1 waxa ah bay leeyihiin daacadnimo honesty ammaana qof ammaana la inuu ahaa waa waxa koowaad ee leadership هذا قرآن يحدث هذا الذين أخريه وحلقة يربعين استنادان ما اللي ذا الدنيا قالوا ده وصفوه هو قال لي ولا قال والله قال وكور رمى يوم يحلو دي عندك دورة وهي عند محاوية هاي وحلقة وكوشنا في صدق مليان قفل لو يديني وبدأ المريكانية يوروب جودة أي واحد قيم وفطرة بني آدم هي قفك ضمن قلي كرتا قفك noloshaada mustaqbalkaaga dalkaaga dadkaaga waxa ay sitibad ku aaminayso qofka isaga jireeya umada nolosheeda yaad ku aamini karaysaa marka diin baa kama waramayaan dadkan iyo waxay ka waramayaan waxooda ay u dhiiban karaan yaamini karaan waxay leeyihiin ko waa honesty waa amaana waxay tilmaameen waa vision of aragti leh waxay tilmaameen waa inspiring of تحفيز إلهام جوبابيل ده هو ودي كرا وحاجة هذا قد برسالة على شنقة في شيء كريم وحبودي كريميس يعني الليدر أركتيله وكدر يكسره ماشوا صعدا لكن عندك يسكننا عين كريمي وحيد هذا نينجا من ينندر هذه الصدرة برسالة وحقا تفكر ولا إنسان نينجا عندري ملا كريمنا وحكا كريم وارك كرا كوحدا جابنا وضبطه حلا مشكلة ضررتها وحبا قوم مغضب حلا حلا إلا رمي دوبا صوبا حساب إن الدقة قمعين كرتو وهاد قادي كرتي والبلدة توسي كرتي وهيداك الراعان يهنا تشبتي دا دايقة اسكيقدر ستي دا أركي بلايا دا بعد أكرا أول ملحتين هذا اللغات إلا هيقا من ملاهو الشيء حقو دا يتكسر نغطي هي ما يدهن أنا تفرطه ترى ما كمان قارن وان كرمها بلا قبضوي أنا أبتوي كرمين عمك إلهي غير خوارين كي حلكو كجرا وحركت والله اسكما هيو لكن هذا ضدك قواني كريم واحد هذا الليدر كنت الله بدت في سكور ريال ليدر ما بينها يعني ملان ضدك وشوفين هذا كيف كريسو وحنا جالسين كده هذا كررته وأدك تيرات رفته سادر هذا الواحد هذا قف وينو جوبابة ليه وينو إلهام ليه وينو تحفيز ليه
وينو ددكيسا waxan uu rabo ee uu arkayo waynu ka iibin karaya oo bulshada wari kara kaafrada waxay ku tilmaameen oo competency kafa karti hawleed ama karti shaqeed inuu leeyahay ka shanaad bay yiraahdeen waa intelligence waa warkii dadka maaha iyagu wixii ay u baxayaan iyaga dib aan ka warramay doonaa waxa weeye waa kuwa shaneerkii waxyaabihii ka soo baxay dadku tilmaamay waxay dhahaan kani waa dadweynihii ee balaan maamulayaasha wax weydiino kun mudiir kun CEO marka shirkadka waaweyn iyo dunida ka taliya kun iyo 500 ka mid ah kuwa shaneerka u direen waxay weydiinayaan leadership maxaa ugu muhiimsan waliba iyaga waxay weydiinayaan maaha sifaadka leaderka lagu noqdo waxay leeyihiin inaad dad hogaamiso ka hayso maxaa muhiim ku ah waxay yiraahdeen credibility ninka leaderkii wax ugu weyn oo hela waa credibility waa mustaaqiya kalsooni dad ku kalsoonay ma kaxayn kartid bay leeyihiin dii waxaad maamulaysaa wax kalsooni kugu qabaabaanay jirin you can do the work way shaqada ma qaban kartid waxa ugu muhiimsan ee nin hogaamiye uu helaa waa credibility bay yiraahdeen nimankan book dambe qoraano la yiraahdo how leaders gain waa credibility bay bookooda la yiraahdo ciwaanka weyn waa credibility how leaders gain and lose it madaxdu siday u heshaa inay kalsooni hesho siday si u lose karaysaa markay taxaaliishooda wadeen laba shay bay ku soo koobeen labada madaxda xaqiijisaa bay yiraahdeen credibility bay helayaan duu leader ku labada helo credibility bay helayaan bay hadduu labada tan waayana ma noqonayo qof dadku kalsooni ay ku qabaan saadaradeed wax ma qaban karo labadu waa maxay waa laba sifo oo fudud nabi maxamed intaanu nabiga noqonin muxuu ahayd sifadiisu عربي محل تقال الصادق الأمين لما كان البحث يقول إن النتيجة دي قارين وحويان وتروث telling and trustworthy بينها كالسوني دا ضدك وحلقوها لا إن تقفروا شيء يتبركوا لأن ضدك وركا قرفوا قادم كبر نبينا عليه الصلاة والسلام حين ليه آخر الصبح إلهي ما نتقياما ما إيقوا وما تزكيه وعذاب كل البين آخر صدح قف الله نحرسان بأجرب ونبغى تلمامه صدح ده قف وحين نذكر روا صدح قف ووحي اللي قف لي وحنهن لي بدنا بيقول حقولي والشيخ الزان ويلزم يستاهل لأنك اللي يرى بابا شهودي وحوضاي وضي حراشي بوح ولا هذا السوق قال لك أبلاين هذا النبي يقول عليه الصلاة والسلام شيخ زان وايل زينيستين آخرة إلهي ما من حرس سواك قال بعض النبي قلت المام وملك كذاب مدح بين ريالنا إلهي ونحرس قفك مدح ضاهي وإنه تروث تلين هذا ربط الضط وإنه كنت رسكريا إن الضط كلسوني أتيه شيء واحد شيء بيسأل الرميسلو هذا بين ريالنا نقطه ما أنت ضد السياسة وحي الرميسيين إن النفاق بس كطي ولي قابانا تمرهم شيء ضدكم دوخي ما هبي لي واحد كرسوري ده الوهاب كرسوري ده برشة واحد الوهاب لا بي لي وحويا وتروس تلي نبغى نقول لي ملك كذابك ملك بنالا سول بنالي آخر قوة نفتينا في الرميسان إذا قف كستوى وحجامنا يا وين في الشيء النقطة دين تبع إلهي من حكم سفيه والذي جاء بالصدق وصدق به والغت المال كي هنت اللي مية كي رمي هم باك أصلا منافق نمية قال نمنا بين باك أصلا سلام نمية إيماننا هم باك أصلا ومرك كوات ربي قال شيء لا إله إلا الله مرك تراضو وين يكون نقطة لا إله إلا الله وحي الله أنت ثلاثة كتير اتصل صادق وين يكون نقطة إلى هو أقبل أدنى تراضو هدونا تلاذا وجه دنيا كبد راعيا هذا وجه دنيا يعني لا إله إلا الله ما حكم كنت وحق سيا سيدا وكيف قفك وحما مراه هدي للربوي ضدك
وهو قامن يقدر سوليد يسوي هلا credibility لو حلقوا هلا بين ما كان يليه وترستلين يترس وورث وخروشيجي هي أمان هي المصداقية في اللغة العربية أمان ونزاهة هدي أضمضة ما مصر معلوم والبنى طبعا النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له وهذا الشيء إيمان ملك هو أن يعني إيمان كذا وإيمان كل الربع معتبر كهامها هو أن أمانة له يقول نقول ديننا ملك هو أن بلن كفورين بلن كأقوين الصادق هذا وحد الضدك ويا ويسي وحد تكتبين الرونا هذا إذن إيمان هي الدين بوحد لون دي إذا لغدي صفين مش هيك نعيد اللجوايا لغدا صفة عيد اللجوايا إيمان هي الدين ملك والذي قال إنه وحين إلى ما ضحلوا خلصوران كرتمها ما ضحلوا خلصوران كرولا الراعي كرو ما أها والله الطريق وقت يتهدى يا 5 دقائق 5 دقائق هذي بالي يعني ما كان نتيجة دينه وما تجي إذا هو كتابه ده هرب عودي وحيلين 5 ممارسات رسمية لقاها 5 شيء هو الريا محوية هي وحيل هذا نيجو موديل دوي وتصال النقو وحنا ضربت إلى الدك كله قابليسو وين ضربوا محي تصال كطهر تصال النقو معناه دوا محي بيدا ولا بس في لقاها لا بيدا وكلاريفاي فاليوز قيم نولدات إلى أن يسير وجرو أخلاق دقن دين وحد إلى أن يسوي ضدك ضربت إلى الجود بيسو أمانة تربطها صادقين إن النقطة بتربطها أو كرنا النقطة بتربطها وقيم وفاليوز values كسوين هذيك اللي قاعد هلا بيني مركو هراء وين الفاليو له إنسان بلا أخلاقي أحمه قابل سكن تدات بينها سد values هذا هو النموذج كنقط تصالح النقط معناه دوام محي لبدا شيء هذا الشيء بيني لبدا commitment وحيد هذا و5 practices هي 10 commitments في هذا 5 practices كهال practice كستا وإليه وين لقاها والله بس شيء بيليه لبدا حتى الله تقول لقاها هذا كوميتمنت هذا صبيصو صحابته يتلمامان يسقى أولها قوبها الدجال مركان وياعنا بيليه يسقى اللي هو كبير وسو هريتي يقول لي قوب مع عرين بل يلا صحابتي كعررين وصدرين خصوا حدي غزوة حنين أيوة عررت ده يا مرض وتوح لها أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا وحنا هاي النبي بين الشيء مالي إن عبد المطلب أنا هاي إذا هو قب ده قالوا رجيس يسوي يا عم ويسوي الشاغنة يا أو يسوي هدف الكوادي هاي علي بن أبي طالب وحلي مركان وقوصنا يبقى هو كبنشر أشجعنا وها عينك إنه يقولوا كيو وقع في عمها وحبهم كيو عبادة بدنبها ومورال دوي نموذج نقول هذا تقول نموذج توقتي توقت نموذج توقتي قبيلة النموذج توقتي ساد credibility وهلسة ساد ده مقابل كرئيسة هذا ده واحد شيء يساري واحد ما كتير يا أفكار سارين بينالتها ساد كالسوري ده كوهلسة ويا إلهي سبحانه وتعالى وحين لي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذا حاجة كسوة تكتب طغانا أنت بدل أسوة حسنة ما كان مكور رما إنه زين زين دم مكور قرك يسون نضي يقمص كجابسي يسيو صلاة شيء هذا أنا وحيسون تكتب دجال كي أحزاب كذي نبغى مركو دجال كان مانج كريه معمولية قيد كنت تسوه قامية تكتب ولقيه وحي أي إلهي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهو قامين بنا أدب ابن كثير ليه أي كهر رئيس وحلا ليه كجان طيد النبي محمد واصله الصبري وهو قامي ومعمولي دجال كايس ودي دادورنا للسجعلي أحزاب تدور دورنا ما يسقط بيدي بوحي جري يواني لو كنا وقف قارين يوم إلهي بس سبحانه وتعالى ينبر يمور الدوي إلهي وحين ينذلك هو حانا لكن إنه قرينا مشي إلهي وحين إني حرمت الظلم على نفسي نفط إذا كحرام يلبى إلى هيرين الظلم السماء أنا جوجي الظلم السماء ماي وجعلته بينكم محرما إذا كان حديثنا
يعني إلهي وحين لي أنا جوجيان وحضر منن يسوي لدل دورن يسوي كابورتي يسوي وحيسيات هاي يسوي قلابة وحيسيات هاي أيوة إلهي وحلي ظلم جوان جوجي هذا بقى يدم فرة هايستول منها وقت الماضي إلهي سبحانه وتعالى قرآن وقت الماضي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون أنا قال مقتل لما بقول بقرآن كسوع عرّي كما كمل كبر مقتل على أدق إلهي افتيسي وحوين عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون بهمت هنا تذكر بقرآن ثاني وحيدا الصمين إذا ما قال وحي لي هذا الليدرشيب ربطه في عن هرمود أضربته نقل هي أخلاقه هي إن أدرو نمبر 1 نقطة وحنا دتك وشيء يسوع نبي محمد عليه الصلاة والسلام ساجد لسي إسقى لسي إسقى دتك الله لسي جاتور كده بركيس بوسيدي قد بقضية ما شاءت كتاب إسقى لودي بمدرج قال لقول يا إلهي رسول كيسي هل كمان تقوليني يدي بعد قبول إسقى قوليني سد فاليوس إسقاها النموذج وحنا قد يني ومده قابل تدينا عمر بن الخطاب إلى هاي عندنا يتقوي ما دار سوقتي في بحي شيء علماء التاريخ وهذا عدالة سميسوا كبات سميسوا كبات نبت أنا نبت قال يا عدالة وسياحة ورانكنا وحاول نسوق بنبي إبراهيم يا رب جيت ضاد الأحمر نبي إبراهيم إلى هو امتحاننا الكلام كذب أبا المري لسي امتحانات يقول من رجع نقطة كذب إلى هي أبا المرسي شيء جيسه إني جاعلك للناس إماما ومدى الهرموت كأجر نجيبان لي أبا النبي بقى قدوم حولي لا هي قوة كي يركضي إلهي بحوق الجواب لا ينال عهد الظالمين بإلهي هذا قبل الكيو ظالمين تبقى هرموت نمه لما يو قف ظالم يقول وحي هذا قاعدة روحوا sentence كصاص عليه حرف كستا حرف كوه الرأي كذا do what you say you will do بينا do what you say you will do نبي الله شعيب نمك إلهي كوربي محولي وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت بحال دي شيء ورانا يكون ريني ولي أنا مخالفة يا معه هذا قدوة يقود يشهد أيها كان وين النموذج القطع قطع كلامه يتلمام وحويا inspire share view أركتي وحاضر كيسو ضد كدارعيها كل وداعا تمعني وحويا في شدة يلو ضد كنا كروقادو جارسي في شدة يلو and enlist others qodobkooda saddexaad waxay yidhaahdaan waa challenge the process waxa weeyaan leaderku waa nin raba inuu wax bedelo waxa aad ku jirta bay leeyihiin iyo inta kugu xeeran oo quraha arki ee try garee inaad wax ka bedesho try garee hal tusaalaan siiyo صالح ده وحنا ربنا النبي محمد الكسي عليه الصلاة والسلام وقت وكوبي نبي الله محمد وحلا يجي وحى لغو صدره ومضى الدوري ده كله على لكن كل يقول وما بديني هو كذا شيء الدوري كله قاعد داية قريش بوتاج لا يديني ما يصير يدور قريش كل تاج وين يوم حاد ثلاثة من هو حيسكت داية any possible way أو process كم كل challenge كريان وكيرا ابن هشام في سيرته وقت المام يشن يتبع قبيل بقول كل من حاجة مرك الله يما ضايو قبيل خو تقع وأر الله تيسان دكيوريا وحميجي علينا يسافر كذا مقادنا يعني دكوا رادنا يا شن يتبع قبيل بسود دي كوي يقول الدواء أحيد هذين وأقول الله ما كل قاضينا لكن هذيك الضبطة أريك مالنا عفوا لسه إنما كأنه حق سنة هذا ماشي ما مش هذا تقول لبطه ما هو نحلنا إن الأمر لله بيو ما إلهي ما يسكله عليك هذا كل من ما ينبغي وحنا محبا حكى فيه شن يتوقع لدي
isku day inuu gobolka ka baxo bal cid kale raadiyo Taif buu tagay waa la soo celiyay waxa soo dad iyagoo diiday haddana muu ka fadhiisanay rumaysna process kan inuu challenge gareeyo wax bedeli karo inaanu isdhiibin akhiran ilaahay wuxuu fudeeyay niman dhalinyaro oo ka yimi Madiina inuu helo bay'at al-aqaba lula Allah hadlo way diinta qaataan oo ku daran wax bara oo Madiina u tago wareer Madiina islaamku soo galaan oo iyagoo toddobaadna ay soo noqdaan oo rag iyo dumar bale oo ay dhahdaan bay'an kula galayna heshiiska ku kula galay mabda uu kula galay manfac dunawiya ku ma galay waxay dhahdeen haddaanu naf iyo maalba ku bixino waxaan dad oo dhan ka celinna ka celina maxaanu leenahay وفيرسو مو كورنا نجد بدايبا مدحنا نقولنا يا وزير رائد السينما شركات مقالات رجال فرعية تمام لكم الجنة بكوي هذا تنفو لسان دي جنة ليه والمركب هو وين ابن آدم علو أيها ليس منا بكتل المال ويقالين وأفضلين عربي عجبه وخلطنا قال لما إسلام نبات بيحوجي حين وجدنا نبي محمد وحو تشالنج كريه بروسس كي ماشي يعني إيش كده هنا المرة بيسديبين أو هربطه marka waxay dhalaan challenge the process laba commitment bay la dabeyna commit ka koowaad waa serda opportunities fursadaha raadi midbaad ku dayday waad weydin ku day shariyo toban ku dayo markuu waayay tii ka dambeysay ku hada idan waxay leeyihiin البحث عن الفرص نجاح وجوشنا waxay dhahaan waa laba shay oo soo tagtay waa qof fursadaan diyacin diyaarna bay dhahaan حتى هذا فرصة كسامر تاعدون ديار هين أحبك بعيد ميس فرصة دي وطالة لكن هذه كان ديار هين يقول فريق واحد وطا ما تفيد شيء واحد هذا جوش وفرصة يدير أدون ديار هذا تشارس وإذا راح بتري ميس إذا قف كسوتش هذا فرصة كإلالنا يا والليدر كان أي فرصة صومر كرتوا برشة دي سيدة كيسوق فايدين كرو إسلام كان أهم حي دياره هذا مركا هنا process challenge كرئيس أول لقى ركنية وين فرصتنا إلى لسه هي experiment and take the risk بين هذا فلو قول ده وإذا صار سمعنا دبتنا هذا نك عن تجارة أقرأيني تبوش مقال هذا استبدل ده وين الدنيا ده كنعم مثلا استبدل ده قال الدنيا ده كنعم هذا هذه يكون واختيار disaster ونعم هذا مثلا دجالة وكذا dagaalada kale maxaa dhaca tujaartii hore systemka taqaanay way baqataa dadana waxay siraan war bal arrimuhu kala dagaan hortee xagta meeliga mushkilada gelina waxa soo baxa qoliyo cusub oo furaska chance gareeyo sida hada take the risk 50-50 laakiin you can win one time dadana tujaar cusub oo Soomaaliya mugarraqi tujaarta hamiya waxba ma maqashay magaceedood niman cusub وسجاشن كيكو هران لا مقلبه هذا تجار وعوضها لكن وحي تشالنج قريه بروسيس يعني وحي أقبلين وضع ريسكي كتشيرو إن كده باب مشتري كران واحد كسبان كران واحد ترى دتكي وده تشالنج قريه مو وده قوليسن ضد بدل بصاحة لك بقى خسارة لكن أنت فرص كسيفي عن وقفة إيدي ستيبا محي إيه صباح ده وإحنا الليدر كبركان وإنه لبض الشيء يا شعبين هذا Soomaalidana maxay tiraahdaa barti yaqaan bari uma korodho bayna ninka inta uu ku warwareegay inta uu arkaya de ma dhaafay inta waa barti yaqaan bari uma korodho maxaa sifada afraad waa enable others fact waa tii ku tilmaamay hawayaan kaliga wax walba habatali inta badan سياسيين تبدأ تشرب جوليسته لكن كل جي وحول بمتاع لكن ما أنتم ماشي قبل حسب بابا ما تتكلم وياه أما ينطق إذا هو ون مان حسبه خطر ويوية مهما وضدك مال سرق جارسيو ما أنتم ماشي قبله هنا يهلك بديو إذا تابع غيابه هنا يأخذ وصول على إذا الله بس شيء بمهنا بيلين وحاب بيلين foster collaboration and strengthen others ممكن الآخرين وافسح لهم المجال بينها ضدك كله وأقولوا إن الشغل قبطان هذا الليدر كان قبطان
وأنك بيرهدان xulashada fiicnaysiiya booska ku habboon u dhiiba adawaadka agabku u baahnaana siiya bay yiraahdeen that's the good leader bay yiraahdeen dadkan uu dooranayo qofka xulasho fiican wax ku doorta qof fiican doorta isla markaana meeshu ku habboon yahay dhiga bay yiraahdeen siiyana wuxuu wax ku qaban lahaa dabeetana delete gareeya delegation uu ogolaaday inuu shaqada qabto marka qaada baad soo saaraysa waxa ka soo baxaya meesha tan rag adiga ku cajabiya ayaad soo saaraysa haddii kale ay noqdaan dadka meesha kula jooga waxaan xasuustaa madaxdii Soomaaliya soo martay bergi jaamacad Carbeed ay rafeerna ku biiraan ayoodagii meesha maamulaya uu aamusa dabeetana golihii wixii oo dhan soo fadhiistay nin golihii wixii ka mid ka waramaya waxa la isweydiiyay markaa madaxweynuhu ma inuu carabta galaabu doonaya mise ma rabo كردينا وطانا إسنوه بحواي لما يكتب الصحة على الرأي هذا موجين كريم حتى هذا وهليتني تطبخ نقول معي ده ماشي كبحضوا وننسنس سك الصوت من الرجع والطهي والهلية وتوه الرجود وتوكل الطهي مش هيك مالي كم حين الليدر كان الطهي enable others to act بينه وممارسة غير مطلقة إن الضغط وقلات إن الشغلة قبطان لكن أتسلك شكاية وحاسة ميسر هذا كودا وقدم بياية الماما وحيدا هذان وencourage the heart أما شجع القلوب أما التقدير حويا أفكودي هذين كل شيء والله ما قدم بياية هذان هو recognize the contribution and celebrate the values and victories اعتراف رجال واحد أبطال qofka ummadda wuxuu qabtay اعتراف inagu cid aynu اعتراafsanayna waxay ma tartiiba ma jirto second to that waxay yiraahdaan maamuus cidda wax keenta cidda wax qabata ha helo qiimaha iyo qadarinta uu mudan yahay victory-ga uu qofku keenay ku maamuus waxay yiraahdaan shanta qodob haddaad samayso waa practices bay leeyihiin qofka dad hogaaminaya shanta qodob sameeya waxa uu sameeyaa bay yiraahdeen hogaamintii loo baahan ay ku gabagabeeyaa leader iyo bulshada waxa isku hayay xanjada isku xajisa waa jacayl bay yiraahdeen kalgacal oo ah qiyaadada inay dadku jecel yihiin ninkuna uu dadkiisa jecel yahay ama si kale haddaan tilmaamo hal xadiis baan kaga bixi nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم ما يدين شيء حلك مدحدين وهو في عن يكون وشرك بدل له النبي كله ما سيدا ذلك رسول في سيوها حلك مدحدين النبي وقوة تعشين إذن يقول إذن شعل الدعاء سنة يقول إذن دعاء شرك أبوه مدحنا وقوة إذن نها بارك لدى بتهالنتين هي نها بارك لدى بتهالن نعبت نيدنا نعبت وقوة شرف هذا البنوي قال دينا وحي ليه الله وحي ليه وحن كذا ليدر كي يكون شيء يسوها وكان قاعد في سيد المامية نبي محمد نوح المامية عليه الصلاة والسلام هنا عين كذا هذا هو ورقة جون ماكسويل ونمك واحد محقق قراءة وقت سهل مليون ومحقق بدل ووداد كريستنا منستر كميستا ديدو markii dambana faniga qolada uu guurtay mudarribiinta wuxuu leeyahay leader waa ka wadada garanaya isaguna maraya dadkana tusaya waa saddex reebo leader waa nin wadada garanaya meesha fishal loo meel uu socdo garanaya isla markaa isagu iska bilaabayo sameynaya buu leeyahay shaqada who knows the way go the way and show others the way وأنا نسوي جدك قرنيا يسوون مريا ضدكنا تصينيا ما كانوا حوليه هاي لذر اسمه المعمل لكن وقتك وقوم في الله وعدا ماضي أحبوا كوبي وحويان وحي تجارب بنا آدم كمان مسيرين لغرورني هدين إنت النقطين وإن كني أفر بقول الصراع كهر وراني حديث سنة الماضي من هذا الموقف تجريبية ورستي وحي أصابها ما أنت طيب أنت نمرك ودقني الدين
haddaad dad dhaqan iyo diintooda rumaysan noqotaan tababarka u baahantiina qaadataan good leaders baa noqon kartaan waxaynu wax ku dooranaynaana waa inuu waxa ka noqdo sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin